بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضياء halkani waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cid wanaagsan gudad iyo dibad meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada munaasabadda ciida barnaamijka aan ugu talagalnay barnaamijkaasi waa soo agaasimeen waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland isla markaana idinka soo gudbiyay telefishinka qaranka Soomaaliland meel kasta oo joogtaan cid wacan oo wanaagsan barnaamijkan oo aan soo gudbin doono suugaan si aad ugu heli doontaan oo aan si toos ah halkan fanaaniintu ay uga qaadi doonaan fanaaniinta inoo marti ah ee inoo heesaya waxaa ka mid ah haddii inta imikaynu qabanayaan diin tilaabo bokor cadaawa dulxoogay oo isagu boongaha inoo tumi doono boongabays cabdi qurbaani oo xulkeenu tumaya maxamed xasan cali weji oo isagu barnaamijka inoo furi doona isla markaana salaanta ciida inoo gudbin doona garabkaygana waxaa fadhiya muslim macali caydi oo isagu fiyoolin inoo tumaya heesaaga iyagana waynu soo horeynaa horkeena kadib ayaan mid idinku sheegi balse maxamed xasan cali weji ayaa ku soo dhaweynaya ugu horeyn munaasabadda ciida iyo salaanta cidda u jecel yahay inuu munaasabadda ciida uga faa'iidaysto inuu gudbiyo salaanta munaasabadda ciida awgeed مبارك waxaan leeyahay marka waa iido waa cali bakh hadda diin macnaheedu macnaheedu waxa weeye waa iido barwaaqo ku jira insha Allah ilaahay waa qodob inoo shubsayno inoo bilaabnay waxa leeyahay sida alxamdulillah taha inta haysato dadku ma hadda ilaahay وهم هذا الهاينا السلام لها واحدة بقى تحضر وش قبل قبل جمهورية الصومال ينتهى الصومال كلها مشروع وفنانين كنا بنشفكنا وعالجين تنا ملحنين تنا يشريات تنا ودهن ودد هيجنا مش قيد تودي جلبنا وعيقلي جودا من الدارين جودا يما ولدنا وحلاها هاي وجوم وجر انت نتضاوز وحلاها عديان نتريكي نوكا سيحموني أنا قلتك هذا واحد جعلها إن كل محمد أرقام شيكوي قصرنا والله حسن دوناي إن حبط شيء أنا إنه بقدرته سنة روان ويكي بدوني على رفضيها هذا ودار دون هوشود لكن إذا كلفتين سيكون ترى أنت هذا الشيء جيو أنت طاوع سوا شكل اللي تريدو دقيقة وحاجة يعني كل كده هو الرياش إيد ما تتصوف لكن هو الرياش هو موجود من الشكل وهي هندم إلى هاي أمتين أنت الصومال بتحسن الكتو أي شو قال وحكو صوكم بي هل بريو هلا ترى كل هذا الودع سواء بين وبالود طبيعة واحد متهدين توصل تلك هي مقالويك بفرشليكات قالوا شيء 10 سنين قبل يقصك يدقابك الله وقع عبي انت حتى الى الحكومية انت هم بلغ الى هاي مبرا هذا بقى غير طيب لان ايدك اسراء الواحد ست حبلون تقول لي اي الى هاي صدق 10 رمضان تبي هاي هذا واعي وراح صدق شكو نسيت دالي هي هبين كيد برضه بيركضوا الشعب ايوه ترى واحد توريست صندقة بيتك كمية صندقة اي كم قريش فيها بينا تركزك مرة واحد فتحت العيد والست اي راكب سلامتي راكب كبرت كسيت الاجو فتحت العبارة بالوصوية انا اقول مع التلفزيون وإذا كان كم مريء يحكي نفسك إيه ما قاعد دوام هاي
هذا بعد كشكي صدق العكسة ده كوا أبوها يا وطني يمر استهان بدوار ما يصير سو كم بحية سو يوم غير ركض هم تبغى قصتي الدوار ما هو بعرف وابدا وهذاك والله بيته هم الرقصة صباح وحلي الدوار يا شايستيري هذا واحد مهندس الدوار دوار يشرب لها هذا وحلي وعيد وعلي بخبخ وحنا يكلا بحياة يهسها هم قلت تجينا waxay hadda u qaadateen qadar Soomaaliya la xisaabtan mubarak lagu joogay waan hubaa inay haqabtiri doonaan wagaag maxamed waji ciid wanaagsan ayuu leenahay waxaan guda gali doonaa sida maxamed uu inoo sheegay qaybtii heesaha fanaaniinta inoo heesi doona fanaaniintaasi waxaa ka mid ah wiilasha ninka la yidhaahdo Cumar Shabeel ayo garabka soo fadhiistay fahmo oo ka mid ah heesaha doona saaka nabaweyni doona inoo heesi doona madasha inoogu diyaara in ciid wanaagsan ubax ciid wanaagsan mubaarak waa hagaag munaasabada ciidda iyo saaka iyo farxadda iyo ummadda islaamka iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliland bal hadda intaanad horta heesin in aan chance ku siiyo waxaan halkan ka salaamayna ciid wanaagsan leeyahay ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaali si gaar ahaan ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak madaxdooda iyo shicibkoodaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan caruurtayda oon aad maxay tahay salaamayo leeyahay ciid mubaarak hooyo labadayda hablood Amiire Dabsan iyo Aragsan waxaan leeyahay iyo maxay tahay dhammaan caruurta walaalahay dhaleen maxamed ilma abshir oo dhan dhammaantood iyo ilma maxamed ba waxaan leeyahay ilma maxamed cabdilaahi dhammaantood caruurtaan ayida u ahay ee Filsan Axmed dhashay ee walaalahay dhaleen waxaan leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak kullu caam maanta bakhair intaan ilaaweyna waxaan leeyahay kalgacayl ayaan laabtaydin ku hayaa igana raali ahaada mar hadda kullu caruurta salaantay waalidkina waa salaantay aadiyad in bal hadda heesahaagii iyo farxadda ciidda maxaad noogu tala gashay waxaan saaka ugu tala galay heestii ciidda ee caanka ku ahayd idaacadana laga sii deyn jiray TV-ga qarankana laga sii deyn jiray waa maamuus laakiin maamuus kuwada ciidda marka la leeyahay hotelkii maamuusku ciidda lama laha waa heesta sharafku ciidda maamuus kuwada ciidda waa hagaag maamuus ayaa aynu jecelahay inaan ku bilaabano maamuus waxa ay ka mid tahay hantida in wasaaradda warfaafinta oo in laba jeer ba ay tahay oo xagga midhaha waxa sameeyay Abiib Imaan Xasan oo ka tirsan radio Hargeysa iyo telefishinka qaranka Soomaaliland ubax Daahir Ibraahin oo waaxda dhaqan ka tirsan oo wasaaradda warfaafinta way qaadaysaa in maxaan ku dhahday waa hees aanu dhan walba marka laga eego wasaaraddu ay leedahay maamuus kuwada ciida waxa dhanka music inoo tumi doona in Buluxubay Cabdi Qurbaani iyo Mustafa Macalin Caydiid oo isagu violin inoo tumaya bahasha aad ku codka macaan furaha u eeg in aan idin kala baxo heesta maamuus horta heesta aan kaaga sheekeeyo anigoo ina yaraan qaado maanta waxaan qaadaya anigoo aad arkaysa marka anigoo madaxa qaaday maanta ya oo ah madax qaybeeda yaa oo heesaaga madax qaybeedkoodii ayaa qaadaya waka marka kol hadaynu soo xusuusanay heesta waxaan salaamayaa abwaankii sameeyay Abiib Imaan Xasan iyo ninka fanaankii la xameeyay waa Yuusuf Subxaayo oo tumayana aad baan u salaamayaa dhammaantood waa hagaag balada heestaasi abakaro qac ka sii مسلمين تادوا لدودن
ماموس هو دعيده ماموس هو دعيده ملسده دولكينا اسكافي ونادوده ماتده عياريسا وعد مرمش حردايا وعد مرمش حردايا ملسده دوركينينا درتو اماني وباحين بدم يدك سقف ونادوده وردوده ماتده عياريسا وعد مرمش حردايا الله وما المخيرات ما المخير لوياني eeg maamuus ku wada ciida hin iyo mid ka mid ah heesaha munaasabadda ciidda aan ugu talagalnay iyo qaaliga ah ee ciid al-adxa iyo saaka oo ay inoogu marti yihiin fanaaniin kala duwan oo reer somaliland oo ubaxna ah ay ka mid tahay in ubaxay waxaad waqtigii aan qaaday waqti aad durugsan bay ahayd qiyaas waqtigii sanadkii aad baan u yaraa labadii kun iyo waxay 2005 laakiin dadku iska labadii kun iyo shantii, haa. eegda ahaan uma yaray laakiin wax yar oo dhuuban oo daba shaqaadaysan 17 sano ka hor bay dee maba yara hadaay 17 sano dee waan yaraaye had leedahay qofkii dhashay maanta waa xoog waa xoog weey waa nin qaangaadha had leedahay aadiya markaa marka waxay heestana way qaangaadhay way qaandhaaftay marka maalin khayraad weeyaan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak waxaan soo dhaweynayaa imikana dee fanaaniintii kale aadiya si aan chance ugu baneeyo mar labaad bas hadduu yahay bawrhaale ka noqdo waa hagaag mar kale ayaa ubaxaynu sugi doonaa in maxaan ku dhahdaayay ciid wanaagsan ayaa daawadanaadu leenahay bal hadda fanaaniinta kale iyo heesaaga kale ee inoo martida ah ayaynu u yeedhi doonaa in marka aynu ka nimaadno ragga garabkayga fadhiya nin isagu waqti dheer heesayey ayaa inoo imanaya oo maxaan ku dhahdaayay dee 20 sano iyo in ka badan iyo intaa heesayey haddaanay 30 sanoba gaadhay 30 sano horta iidow in faysalow hor waa misday noqonaysaa 1900 iyo dee waxay noqonaysaa 90 konto jir meelahaasan noqonaya labiyo 90 noqonaysa soo ma waa hagaag markii ugu horeysay heesta misday daniyo kullu way sognahay labadeenu macallinkii qofkii ugu horeeyay ii tumeno way dhinac fadhiya dee anoo ciyaalan 90kii ii qabtay macallinkaygu maantana naga dee islaaga iskara fadhiya 90kii meelaha doonay markaa Cabdiqurban saragnay 5 sano meelaha si horeysay ma waa hagaag faysal haddana waa nin aad u da'yar laakiin marka uu heesayey dee ninka intan leeg muu haynin aad iyo aad iyo aad u yar buu ahaa waa nin aan waqti dheer horta faysal aqaanay isagoo aad u yar oo weliba aad iga yar waqtigii kalaamka qaxoontiga loo qaxay ayaa uu heesaha uu bilaabay gaar ahaan waxaa si aad u garanaya intii kaam rabaso waqtigaasi u qaxday waqtigii dagaalada faysal soo dhawow ciid wanaagsan ciid alcaafiya waa dhawahay faysal imka inta waqtidan dambe waxa aad loogu yaqaanaa faysal tayo ha horta nin tayo badan buu watee farxadda munaasabadda ciidda maxaad noo qaadan walaal waxaan qaaday hees allah yarxam raxmiin oo lahaa axmed mooga liibaan ha habla sabanka jooga la yidhaahdaa heestan qaaday habla sabanka jooga aad hal abuure maxamed cumal huriyo waxay ka mid ahay heesihii waqtiyadii dhexe
axmed mooge liibaan iyo haweye bixi ay qaadeen bal hadda faysal aan idii kala baxo iyo bahda musicianka iyo habla sabanka joogiya soomaaliyo idil adaan kaa dhex socdee heesta ay midhaheeda ka mid yihiin sabanka joogiyo soomaaliyo idil cadanka dhex socdee sabanka joogiyo soomaaliyo idil cadanka dhex socdee عدانا كوينا نفط وسسبيا سيانا هيبا مويه ساعدانا كوينا نفط وسسبيا سيانا هيبا مويه halkii jaleecada indhihii ku sibugsaday wali way ku sugayaan halkii jaleecada indhihii ku sibugsaday wali way ku sugayaan sahalkii jaleecada indhihii ku sii waqsaday wali way ku sugayaan waa hagaag annaguna mar kale kula ayaanu ku sugaynaa ciid wanaagsan way walaal ciid caafiya hay ciid caafiya bal heestan waqtigii ugu horeysay aad maqashay goorme
niyow waxaan maqlay 89 meelaha ilaa 79 meelaha ilaa 79 waa hagaag in waqtiga radio la dhageysta iyo cajalad iyo waxaas way yaraayeen xageed ka maqashay niyow cajaladihiin yaraayeen la dhageysan jiray naqnaqna een rikoodha la raxmaan raxiina baahi lahaa anoo naqan ku maqlay waa hagaag bariga heesaha ilaa misad haysidii mala kulligoodba may adu kulli xogaa wax xabsana war waa ku garaya hagaag faysal waxa jirtay imika waqti mala in ka soo wareegeen ilaa 24 sano 98kii ayaan xasuustaa iyada oo koox oo cabdi qurbaani oo kamid ahaa waqtigaasi oo gintaar tumayay oo markaa jigjiga laga soo abaabulay oo set harta sheekha ilaa dulcad oo set music oo dhan tumaysay oo handicap international ay waday adna aad kamid ahayd markaa in reer rabaso markay noogu yimaadeen waqtiga adigoo aad u yar 4 sano ka hor dooxadii rabaso inta lagu tumay heeso cajalad lagu qabtay oo aad qaaday heesta deeqa ee maxamed suleymaan tubeec allahu naxariistee uu qaado habeenka maxaad ka xasuustaa dadkii bal hadda goobtaa joogay anigu badri baan xasuustaa kulley badri maxamuud cilmi waa xasuustaa bedel carabi nageeye asraad macalinkayga ninkalaale raxmaan raxiim ka dhinto gaarhaya la odhan jiray ilaahna naxariistana ka waraabiya aakhira ka mid ahayo boonkaa tumayey aduu rag waaweyn oo culculus baa ku jiray maargo laakiin si waxaad moodaa inaad soo baqayso waxaa ka mid ahay nimca saleebaan walaashii qaaliya muuno inan la yidhahdo adna aad u garaysa adna aad u garanayo waxaa ka mid ahayd xaliimo haaqa iyo qaar kaloo badan cudurka kaa gala fartaha wagaag ninkan ilaa waqtigaa ayuu moogtay cajiib sabaha allah codka ha u barakeeyo ayaan faysal leenahay faysal miyaad israacsan heesaha mise waad nagu soo noqon rabaa may waan israacsanaya kulley maxaad inoo qaadi eedinoo wixi heestii wax dhintaad ka samirtaa wax dhintaad ka samirtaa wagaag ayaad inoo qaadaysaa asxaabta insha allahu aynu ku xasuusanaa oo isagu la xamiyey naxariisto wuxuu ahaa musisha qaaliya aad loo jecel yahay fankiisa waxbarna uu ahaa fanka soomaalida xagga laxmada iyo muusiga oo intaba kaalin weyn ku lahaa aad u weyn abubakar cadaawa ayaa goorahanba isaguna aynu sugaynaayo ninka dayna hogaaminaya wangaha inoo haya odayga inoogu da'naya ayaa abubakar
dilaacayo wadhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaay wadhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaay dheelsanaay xadhuunta kama tago andhayahaad ku aragtaa dhulka meeshaad ogaale carabkumaaga dhamaashe 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 labadheel tegaynban ilku dheel iyaayo dhalandhool qaraaban nafka dhigaanaya labadheel tegaynban ilku dheel iyaayo ididiyo kulaylba dhabanada edaa dhici weyda sidan rabay dhaawaciina ilacayo dhici weyday sidan rabay dhaawaciina ilacayo awadhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dheelsanaay wadhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dheelsanaay maasha allah waa dhaboobay jacaylkan dheeldheelsanayay hees qaaliya ilaahu naxariisto maxamed cali kaariye dhakhtarkii jacaylka oo hal abuuray heestan aad ayuu mahadsan yahay faysal maxamed faysal ba hadda intaana tigin aan jaanis ku siiya munaasabadda ciidda ehelka qaraabada asxaabta guud ahaan yaad salaami lahayd horta walaal marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan meel kastay joogaan oon leeyahay kulli caam wa antum bikhayr marka xigta waxaan salaamayaa gaar ahaan ummadda reer somaliland madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka qaranka dhammaan golayaasha qaranka wasaaraddeeda qaaligan aan ka tirsanahay wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka marka xigta waalidkii aniga dhaloon aad u jeclay hooyadii macaan qaali kuwan anigu waalidka u ahaa xaaskayga qaaliga iyo intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa ayaan dhammaan salaamayaa waxaan salaamayaa walaalayaasheeda qaaliga ee farsamada xasan baana rooma u horeeyo walaalkii cabdi madaxaygiyo halkaasoo taagan wax daahir ibraahim qoladeedii muusishanada macalinkayga weliba qofkii ugu horreeyey ee waxii tuma maasha allah ayaa maanta dhinacayga jooga aan aad u salaamaya adigu maalig cabdi yuusufna waan salaamaya hooyo kaltuun waan salaamaya cabdi aabba cabdiqaadir waan salaamaya iyo ciyaalkaaga iyo dhammaan intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa ciid wanaagsan baan leeyahay ayo walaal ayo aad ayuu mahadsan yahay waa hagaageenna
weli barnaamijkeennii ciidda iyo munaasabadda ciidda ee aan ugu talagalnay fanaaniinta kala duwan ee somalilan iyo munaasabadan in ay nagu maaweeliyaan ayaa aynu bartanka kaga jirnaa waxaa soo fadhiistay iminka fanaan aad isagoo codkiisa loo jecel yahay oo heesiyo waqti aad u dheer shayba shay kullow ninkii hore wuxuu noqonaya markaa nin dhalinyaro abuu noqonaya marka uu soo fadhiisto cumar shabeel cumar cabdiraxmaan علي عمر عبد الرحمن علي بون إن كل والله جيبه أنت خربون وهنا مثل ما تجمع البون ومقع الدولة وحلقة بين هذين تروبون معناه سما ما ينهي رفس لك هكاك إن وهكاك عمر عن سود ويننا بون كل ونأكسن وإنك مقلي هبون وهبون أكسن قف قال وابور عمر إسنا هوان عد هبون إسنا لي مروينو هيس دونا والمناسبة دهورت عيد هيسا ومترقلي مد كوبات عمر يهويديو هيسك كوبات إنه قادو هيسكي أحمد الشارع عبدي يو شنكرون أحمد سقل وذاقات وبحي جعيلك وبحي جعيلك كتشرتي رواية دي كتشوغة دي قماها محمد فيدو مركز شنكرون iyo axmed shaar ulul iyo ku jireen saafi ducaale iyo badan hayeen waa hees aad u qaaliya kulli cumarada marka uu ku qaaday heesta waan qabaa oo waa arki doontaan inaad aad uga heli doontaan cumar waa ninka inta badan heesaha jamaca ah iyo markay heesasta gaarka uga dhex dhulkayga nimcaa fadhida iyo kala qaaday ragga codka weyn leh yahay bal hadda markan waxaanu naga dananayaa heesta qaaliga ah ee ubaxii jacaylka ay u tumayaan asxaabteeda diinta ah weydinka أستاهلها أماني وبقادين خوئيقا هو وباحي جعيلكاي أدائيقا أستاهلها أماني وبقادين هو إيقا هو حديو حلاشيت والدك أسلوبتيو أنشحيو هيتها بري حديو حلاشيت والدك أسلوبتيو أنشحيو هيتها بري أوريني ما دون قطع الليلي الليلي أياني نصيب لي أوريني ما دون قطع الليلي الليلي أياني نصيب لي iyo indhays jecelihiin isu aragti weeyaan warkaye ma kula tahay indha iyo indhays jecelihiin isu aragti weeyaan warkaye ma kula tahay
ililiyo warxolo intuu aara roob helay dhibka lagu ilawo lagu ombaxay ililiyo warxolo intuu aara roob helay dhibka lagu ilawo lagu ombaxay ayaad iga dhiganto eegmada jaleecada indhahaad u roontay ayaad iga dhiganto eegmada jaleecada indhahaad u roontay orinimaadu noqotaa allayliyo allayli ayaan iyo nasiib leey orinimaadu noqotaa allayliyo allayli ayaan iyo nasiib leey indha iyo indha isjecelihiin isu aragti weeyaan warkaye ma kula tahaa indha iyo indha isjecelihiin isu aragti weeyaan warkaye ma kula tahaa عمر عبد الرحمن علي عمر شبيل أو إنه قاضي إن رأيه إنه يستعل هستي أحمد إشار أولل وكله قنشرين الله نحرسته أحمد إشار أولل وكم ذا إن بعض فنانين تأي وبري إسلام كان كتر سنة شري بريو مقدشو إن قيبته فرسمة إذا عدنا كتر سنة إن عمر شبيل كله إن مد يلا بقى إنه قاضي ما يهيس الدور أينه قاضية ما عمره واتما هيستو كرعو دارني غير حبيب سنة هذا يضع حبيب سنة عندنا هذا شو سنة لولي وهجاج وحاول غادي شري فنانين عبد الناصر معلن سعيد يو الله ونحرسته سهرة أحمد هجاج هستاسي ونقاضي عمر عبد الرحمن عن مركز بسودويو أصحاب ذلك
hadhay calintii lagleeganaya saxan saxalulaysiyo sida laydha udugeli labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha udugeli labqabuujiya محاكا لله يا عشق عليني محاكا لله يا عشق عليني warka halista igu mudan inaan liito aragtay intaan luxudka lay dhigin warka halista igu mudan inaan liito aragtay intaan luxudka lay dhigin لله يا عشق عليني محاكا لله يا عشق عليني وهاجاك إن عمر هذه مهتسين هي عمر شبيل أو هست اللي بعد برنامجك إنه غنية عمر برهدين أنا تكبح وحن شعلها لها إن عدة سلان يبقادين يهود هذا مرة لهيد إهلي قرابي أصحاب يبرهدا كلمة أوران هيد بين جانس وسيو. aad baad mahadsantahay waxa weeye horta waxaan aad u salaamayaa marka hore ummadda islaamka oo dhan kulli caam waantu bikhayr allah magarasa ciid mubaarak ciid alcaafiya waxa kale oo magarasa salaamaya inta afka Soomaaliya ku hadasha ee caalamka meel kasta ka joogta waxaan inta ku daraya oo raacinaya dhammaan walaalahay wiilaliya gabdhaba iyo caruurtooda oo leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya ugu dambayn waxaan ka baxayaa salaamaya ciyaalkayga dhammaantood iyo gabadhayda waan lahay ciid mubaarak ciid alcaafiya هذه مهتسين هي عمر شبيل كل حبي نو salaamaya oo saaxiibnahay oo la yiraahdo bulla macooyo ayaan horta saaxiibkay waa ka guddoomay salaanta saaxiibkay Cumar waa ka guddoomay salaanta laakiin magaca isaga leh Cumar ayay yiraahdaa marka magacaan ugu soo wareejinayay أبا كرو سلامته اسكا قيبسده معويده ايده kala qaata ma labadaba isaga leh
ayay macooyin ninkana la yidhaahdaa war caan buu ku yahay aad baan idiin salaamaya ummaddana daawanayso dhan dhammaantiin aad baan idiin waad salaamaya mahadsan tahay kulli caam wa antum bilkhayr badan ubax ayaa kulley soo fadhiisan dad yarahay abakrow in waxaan ku weydiin lahaa goorahan boorta adaa xagga boongaha inoo hayey in heesa dooraynu qaadnay marka soo maaha dhammaanba heesahaasi in waxaan isri malaaskooda ridan bay ahayn soo maaha maxay wada ahaayeen focus bay wada ahaayeen focus waa tiimka sanad lahay miya balna yarta waa focus buu cajiibi focus bay wada ahaayeenoo maanta oo dhan focus baan ku dhuuqaynay hay كانك حبطة وتها وقدما كدوقة كلا كود دوقي كله انت هسي سبع حبطة سي كود دوقي لكن واحد شراء إن سامبو كريستي روك ماتش فالزر سامبسودا وبدين تبويكا لكن هسه هي جاب أبدا بفوكسكا فوكس ومرك هروبا مركو هروبا يا قرباني تاسنا يرمى سنوبا وصل أيدون ها ولو هس أدم عن هستن واحد النوع قاعد يسوق فوكس أنا مكان عاو ما تبرني إذا والوارو الشيء والقرباني ويرسو سامبا كستا فوكس أو كريست أو روك أو ماش فالسر سامبا السوداني وبنتا تيمبدو وحويا وبط بدي له ريجي ما قرت روك لكن هسه هي وحي بدي الفوكس انت بدل هسه سوالده سامبا waa lagu qaadaa كريستو ku qaadan روك way ku qaadan match way ku qaadan laakiin inta badan hadda heesaha focus uu badiyay marka match la leeyahay hawa match ko taluu gaartiyay weyn waa ka geel ku soco Soomaa ciidamadu ku maraan laakiin waxaan amaara ciidamadu markay marayaan mubaaragow saaxiib adigu baa ugu waabata waad garanaysaa waxan aniga xujuumad iga dhigaysaa su'aashoodii waad garanaysaa koriga rid aniga abakar ma tumaun waanu heesaa marka kamankana uu tumo taana ku darso markaa maalin dhaweydoo aanu xaflad joognay wasiir ku-xigeenka kala wareejintiisii ayuu heesay si aan ugu ogaa inuu wax tumayo dabadeetana heestaas waxay ku socotay dumarka deetana hees forjaaba ahayd oo dumarka uu ku forjana gurbay jaw gacan la yaalu leeyahay dabadeetana dhiiggii baa wada kacay dumarkiiyo markaasay dhow maxee xaggayga soo wada eeg sayro maxaad iga soo eegaysaa sayro ninka naga waab markaasaan adiguna qaadayoo markaasaa waxaan idhi kulloof madhanaya dee dumarkii markaasay kaceen waanu iska celinay maalinta horta ubaxay waad ku maasan tahay kol haddaa adiga iyo cumar shabeel iyo aad joogtaan anigu horta maba inaan haysta maaha waayo dadku shaqada way kala leeyihiin anigu waan iska canjinayay maalintii dhallinyaraday meesha joogtay baan ugu tiri heestaa inoo qaad laakiin adiga waad ii soo soofaysatay waxba kama qabo waad igu tuuratay xabaddaadii maadaamaad heesaa tahay dee aad baan idiin salaam xasabmaan roma markaan meelaha fadhino wuu heesaa laakiin wuu baqayaa halkan sooma istaagi karo laakiin markaan meelaha kala fadhino wax ka cod macaan shimbiraha soo daataan maslaxa markay noqoto uuruu noqonaya ubax ayay mar kale soo fadhiisatay ayay iyada inoo heesaysa in hees bay noo qaadaysaa in kolley aan filayo inay ka mid tahay heesaha ubax ay qaado waa tuma heesta horta marka hore aan isbaranay heesta aan doonayay inaan ku soo gabagabayno barnaamijka waa heesta samir oo dad badan iga codsadeen oo halkan fadhiya sidaa dee wariyayaasheenna kamaramaanada waxay yidhaahdeen oo dee qoladan tumaysaa ka mid yihiin waxay igu yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaan mid kala qaadan doonayo heestaa samir baad noo qaadaysaa markaa samir baan doonaya inaan barnaamijkaa ciidda basar lagu ducaysto saatir laga baryaayo saatir laga baryaana looma wada sinnaadee ruuxu eebba siiyana cidi kama sarraysee kii aan sugayo wacadkii ma saydhine waan sidaa hadda aynu samir iyo dadweynaha u kala baxno abakar waa marka ugu horeysa horta
aan sugaayay inay waan sidaa oo ka mid ahayd heesaha barnaamijka aanu ugu talagalnay isla markaana munaasabadda ciidda aan idinku soo gudbinaynay ibraahin aad ayay mahadsan tahay heestii barnaamijka u dambeysay ay ahayd waxba ay sheegtay inkastoo ay jirtay hees aan islahaad qaadido ciidda ku saabsaneedoo aan soo laxmiyo ciidda dambaad insha allah qaadiye xabadda caawinaad naga qale meesha la isku xiriiriye markuu wariina heesay oo kii tumaya heesay oo meesha waa laga sii baxee weliba xasan baan raamana yidhaan heeso midhaha anaa ka boobe xasan beeri doorka nigu halle waagaag daawadayaasha waxaan leenahay ciidda dambe inu dhigana insha allah heestaasna oo insha allah aan idin qaadi doonaa oo kulle aad uga heli doontaan barnaamijkii aad ayaa mahadsantii waan soo gabagabaynaynaa halkan waxaa fadhiyey mustafa macalin caydiid oo aaladda aadka u codka macaan leh ee inta badan ku aragteen muusiga islamarkaana ah mid iyadu dhadhan iyo dhuux badan oo qurux badan u yeesha oo ah furaha muusiga mustafa macalin caydiid waa nin isagoo aalado badan kuma koobna fioliinta waxa uu tumaan qalab fara badan oo kamanku ka mid yahay ka mid yahay isku ka mid yahay oo gitaaru ka mid yahay xitaa qaarana magacooda qonna kula way jiraan gowdha waanu heesaa وانا لحميسته وانا بدن حقنا عبدي ويسقان لسوكو بكريم باو فرتي لقاده بيسوق يقانا ادين ميكسر كفريسنو wax walba mid baan mubaarig ka boobe horta ninka aad baan u soo wada shaqeynay Mustafa Macalin Caydiid horta saddexdoodan aad baan u soo wada shaqeynay maaha hargeysa kaliya بريجي توبيان ونصوت شقين تلاقي بدن وذكرني كوح اسمه كوح بانه مصطفى معلن عيديد مالا بدن بان وذا مرناي كيتار بيس كانوا تومية مركا وانو هيسي مركا وحيالا معلن شقوين بدن ونصوت قبل ويشران أدو ونقوم هاد علينا يا ساك الصدا ومارته قروح بدن له وقصة قريب كل برنامج كا نكاني كمان كتومية عبد قربان عبد قربان وحن سوا هاين آسيان هرت الشيخة وحن كرنا يا عبد قربان أو أنا هرت مرة ما ينكر يا ما أنت تنسراتري وهسا وحطوا معي بيسك كم كنتوا معي بونكوتوا معي كمرة دي بطوبة معي قال من رقد كنا عد كجدا يا ريسا قلتنا نديرته وقال من رقد لا هي بقول دارت رجال كاس مكجلي يا سنجوجا هرت
الشيخ بو هيستو كايستي سما waxyaalaha soo dhan macna ninkaas waa nin fara badan waan isuuna heesaayo anigoo heesaa berigii hore heesuu qaaday isaga u aqaana iman arkaystay miyo xun baan arkay nin kale qaaday war maxaa ninkii uma sanka ka galay war maxaa ku geey ninka heesiis marka saariyaha heesa yaa qaada saar dacabta qurbaani baa qaada suudaaniga lahay macad saan ninkii nafto alqa u keenay markaas markii dambe yidhi war waan wada qaatan walaal noo wada daanaga wada le فرحانة وإن آد إنه فرحة إنك أبو كر وإنك يهس حضر لي حضر لي بس كنت بابي وكم عينك وبحيه horta mubaarigu waad salaaman tahay هذه muhiimaddu waa soo gabagabayno wixii dee aan ugu talagalnay halkan salaamun baan ka dirayaa horta dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan kulla caam wa antum bilkhayr baan leeyahay ciid wanaagsan oo wada salaamaya waxaan kaloo salaamaya madaxda dalkayga madaxweyne ilaa shaqaale inta u dhaxaysa waan salaamaya waxaan si gaar u salaamaya shaqaalayga wasaaradda faafinta farsamayaqaaniinta oo injineer xasan baan raami kusoo horeeyo jimcaalo xaggaa ku jira kamaramaanada dhammaantood waa wada salaamaya cabdicasiis muxuu ahaye xukun dadkoo dhan wada salaamaya agaasimaha waxaan wada salaamayaa wasiirkayga wasaaradda faafinta agaasimahayga guud wasiir ku-xigeenkayga cusub agaasimahayga waaxda dhaqanka maxamed xasan cali weji iyo agaasimo ku-xigeenka fadxiyo axmed jimcaale waan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa inta ila shaqaynaysa saakaya soo wada kalahanay ubax fahmo madax qaybeeda ka mid tahay cabdiqurbaani oo si kasta noola shaqeeya mustafa macalin ciidiid iyo adigoo iid walba aan wada soo wada taagana horta iid kalena ilaahay na gaarsiiyo ilaahay nama kala dilo waana saa u soo wada taagnaana adiga qudhigaa dadku weriyu bay ku yaqaanaan laakiin inaad abwaan tahay ood laxamiista tahay ood markaad doontaad ku tuurata heesaha anaa og dadkuna way ogyihiin aniga anaa og inuu heeso markaa dadku waa wada waxaasay wada yihiin dhammaantood marka aad baan idin wada salaamayaa kulla caam wa antum bilkhayr waxaan ilaaway xaafadeeda iyo carruurteyda iyo xaaskayga walaaladay alla muhiimkii baan ilaaway tollaay muhiimkii baan ilaaway yaa iyo kuwan awowgu ah waan ogolay xaggaas iga leeyihin kuwada awowgu ahayd waan ahay ilaahay baa gaarsiiyey dadku ayagoo waaweyn ayayna guursan oo ayagoo konton jira sida saaxiibkay cumar ay wada guursanayaanoo dee haaye guurkii hore orod buu ahaa laakiin iminka awow iyo balaayo wuu gaari lahay isagaa iska gaabiyey marka cumar ayeeyo aad baan u salaamaya saaxiibkay waagaag aad ii mahadsan yahay abokor iyo fanaaniinta guud ahaanba mahadsan yihiin farsamada asxaabtayda oo uu hogaaminaya xasan maxamed jaamac xasan baanaraama saaxiibkay isaguna cabdi jibriil oo dhanka kamaradaha inoo joogay maxaan ku dhahay asxaabta kale ee jimcaale oo kow uu ka yahay axmed jaamac farxaan finad xukun saleebaan cabdicasiis mursal sakariya xasan guud ahaan bahda farsamad oo idil oo isku duuban ee telefishinka qaranka somalilan maxaan ku dhahdayay ugaas maxaan ku dhahdayay cabdiqaadir almis guud ahaan bahda telefishinka qaranka somalilan maareeyuhu dhammaantood iyagana aaday u mahadsan yihiin barnaamijkan intaaynu kusoo gabagabayna dhammaantood waxaan leenahay ciid mubaarak أنا تكبيرتني مسلمين تفرحسني وقال قرحونا مولي نسيو ما هذا دوينا